qaahiraan wax ku baranayay jaamacadda bilowgeedaan ahaa waxaan arkay reer aan u dhigayey gabar kanadii meelaha ka timid ayaa waxaan arkay ilmaha halkaasay tagtaa kanada way soo dhashaa way ii keentaa ilmihiin qur'aan u baraa qur'aan kelima bariye madrasa dhan madrasatu maxamedaan ahaa markaa wax walbaan u akhriyaa qur'aan keliya ma aha ilmihii waxaan arkay marka koray oo su'aalaha i weydiinayaan madaxayga ka waaweyn way soo dhashaa way ii keentaa way soo dhashaa way ii keentaa markii dambaan fikray marka waxaan iri war gabadhan waaba u dadaashaye ilmahan wax waabad barto risaaladii waabad gudbisay laakiin waadna weynaanaysaa yaa ilmahaagii markaad dhashid oo aad duqowdid yaa sidan kuugu hagar baxaya intaad dhalinyarada tahay maad ilmo dhashid ilaahay ka barid gabar walaashay oo markaa deganeed Holland ilaahay ha barakeeyo oo waalidkay ah runtii gabadha noogu weyn Xaliimi Sheekh Ibraahim baa la yiraahdaa aad baan u jecelahay waan u duceeyaa runtii waa waalidkaygii labaad weeyaan cilmigan aad arkaysaan iyo diintan aad arkaysaan iyo dadaalkan waa gabadhii igu abuurtay igu dhalisay kana dambaysay dadaalkaygan runtiina haysay noloshayda intaan joogay Qaahira iyana guurisay iguna dhowraysay runtii ilaahay waxaan ka baryayaa abaalkeeda janno inuu ka yeelo dad badan baa sidaa runtii loo soo haayay diinteena wafaa wafi inaad noqotidaa la rabaa qofkii noloshaada gacan ka geystay inaad u gudid baa la rabaa waa qofkii hal xaraf ku baray maalin qofkii ku seexiyey qofkii farxad noloshaada geli ha ilaawid walaalihii baa kala tegaya isku uurka ahaa ilaahay aynu ka baqno gacmaha iyo wanaagga laynoo geeyey aynu gudno inta aynu karno haddaynan karin aynu u ducayno walaalayaal gabadhii baan u sheegay aan yar inaan guursadaan rabaa waxay tidhi markaa gabdhay dhashay 4 ah allaha u dhowree ayaa waxay samaysay gabar Hollandeys ah oo markaas soo islaanto cadaan ah ayaa gabdhaheeda la joogo oo reerkeedii ka soo tagtay markaasaa waxay damacday gabadha muslimadda ah ee hadda soo islaantay in ay igu darto markaasaa waxaan iri soo cadaan ma aha hadday islaantay waa 20 jir laakiin 20 sano ka hor xaggee ku maqnayd dhaqankeeda seebuu ahaa ma dhaqan muslim buu ahaa qofka wixii uu ku dhasho uu ku barbaaro ayuu ku weynaadaa soo ma ogi dhaqan gaaluy ku soo kartay gabadhan teeda kale hooyaday oo aan jeclahay guurkayga inaan hooyo aabbo ugu baarin noqdaan rabaa haddii xataa aan guursan karo oo taacadii ilaahay ay tahay laakiin hooyaday inaan baari ugu noqdaan doonaya gabadha aan guursanayo hooyo inay barakayso madaxa saarto dhunkataa la rabaa ay la hadli karto uurkeedu wax ku jira ay garan karto gabar cadaan hooyaday maxay isu yihiin waxba isuma aha teeda kale ilmaha ay i dhali doonto hadduu ilaahay ubad isiiyo abtiyaalkood iyo habaryarahood aaway xaggay jiraan reer Sheekh Ibraahim yaan ku xirayaa ma reer muslim aan ku xirayaa mise reer gaalaan ku xirayaa aabihii iyo hooyadii i dhalay abaalkooda ma wuxuu noqday in aan ku xiriiriyo oo aan ku xiro gaal ilaahay oo rasuulkiisii nacay gabadhii wax badan baan u sheegay xataa haddii aan dhinto iyadoonan muslim ah haddii hadhow ilaa way soo gashay diintu wayna ka bixi kartaa sida aynu in badan aragnaye ilmihii maxamed sheekh xaggee aadayan jahannama yaa mas-uulka ah aniga عشان وددي قبض لوجو دونني أنا قرب مري وددي خلط كهذا راعي سوما سيد إن بدنا أبد كانوا أي راعيان ولا ليال مركي وقبضي مركي سيدا أوجاتي رمتي أبي يجو فرح ذي ما أيام فريسانين هويو أو جوكت مركا جارسي وعدي سيدي أشيكتي هويو غير آد أي أجعليت وآد وناكسن رمتي هلب معان قلبي معان آد وناكسن غير بركيسن oo saalixiin ah ayay u tagtay halkaas gabar leega siiyay gabadhii la siiyay ma ana shukaansanin ma aanan aqoonin inta waxa la sameeyay